Sidee Google AdSense ama blogging looga suubiyaa lacag $1,000 bishii? Maanta waxaan kula wadaagi doonaa tallaabooyin haddii aad raacdid ku ogolaan doono inaad ka suubisid blogging-ka lacag ama Google AdSense si aad u garanaysid. Google AdSense muxuu yahay? Blogging muxuu yahay? Muuqaalkan ayaan kugu sharxi doonaa. Blogging-ka waa inuu qofku qoro maqaalo ama articles uu qoro website-kana uu ku publish gareeyo ama website uu kusoo publish gareeyo ayaa waxaa la dhahaa blogging. Article-ladaas waxaa akhrisan doona dadkaas akhrisan doona waxaa loo soo bandhigi doonaa xayeysiin oo ka imaanayso Google AdSense. Google AdSense-na marka waa shirkadda xayeysiintaas saaraysa bloggaadii ama qoraaladaadii dhex saarayso wey. Google AdSense-ga ayada marka waxay kharashka ka soo qaadaysaa dadkii macaamiisheeda ama shirkadihii ku dhaheen wax noo xayeysiin. Adiga ay ku xayeysiinaysaa content-gaas suubisa dhexdiisa, halkaasna commission ayaa ka helaysaa. Si aad blogging-ka marka lacag uga suubisid, waxaa qasab ah inaad leedahay website ama aad suubsatid website. Ilaa waxaa jiro 2 nooc oo website loo suubsado. Nooca koowaad waa inaad isticmaashid Blogspot oo ay leedahay shirkadda Google oo free ah. Blogspot waa free almost, wax kharash kaagama baahno. Laakiin magacaada waxaa raaci doono .blogspot. Tusaale ahaan haddii aad dhahdid aqoonsaad, magacaada wuxuu noqon doonaa aqoonsaad.blogspot.com. Nooca koowaad waa inaad isticmaashid Blogspot website ama website blog ah oo shirkadda Google Blogspot-keeda isticmaalisid. Nooca labaad waa inaad isticmaashid WordPress. WordPress waa CDMS content management system way. Marka WordPress waana mid ka mid ah tools ugu caansan ee lagu suubiyo website-yada hadda joogo. percentage zaid u badan website-yada dunida hadda samaysanna waxay ku samaysan yihiin WordPress. WordPress almost ayada xataa marka website ku suubinaysid waa free haddii qofka toolka yaqaano oo ku suubin karo. Haddii uusan garanaynin qofka waxay noqonaysaa inuu qof kale ku hire gareeyo oo kharash siiyo uuna u sameeyo WordPress website uu suubiyo. Qodobka labaad marka WordPress website-ka qofka soo suubsado u baahan yahay waxaa weeye inuu gato domain iyo hosting. Domain-ka waxaa la dhahaa qofka meesha uu magac u noqonayo ama magaciisa qaabku noqon lahaa. Tusaale ahaan cabdifataax.com taas waa domain way. Haddii aan dhaha aqoonsaad.net waa domain way. Marka .club, .tech kulli way badan domain fara badan jira. .com ugu caansan marka. Domain-kaas marka lacag uu jooga shirkada ayaa laga iibsadaa. Shirkadaha ugu badan ee domainada iibiyo ugu caansan waa Namecheap iyo GoDaddy iyo Bluehost oo laftirkeeda domainada laga helo. Qofka markuu domain-ka soo gato wuxuu u gudbayaa tallaabadii saddexaad. Wuxuu haystaa website iyo domain name ayuu haystaa. Tallaabada saddexaad waxaa weeye inuu gato hosting. Hosting-kaasna wuxuu ka gadan karaa Bluehost iyo GoDaddy iyo website-yada la mid. Bluehost ayaa almost ugu caansan. Hostlink wuu jiraasna. Bluehost aan kula talin lahaa. Bluehost qiimaheedana macquul way ilaa xad waxay kugu host gareynaysaa per month 2.5 marka startup tahay. 12 bilood lagu dhuftay annually ayaa u bixina qiimo sanadle ayaad bixin 2.5 oo lagu dhuftay 12 bilood. Qofka markuu website-kii soo suubsado oo uu helo domain-kii hosting-kiina uu iibsado, marka ka waxaa website-kiisa wuxuu ku jiraa internet-ka ku jira qof kasta access gareyn kara. Qodobadan ayaa muhiim ah marka intaadan bilaabin in aad wax ku soo qortid website-kaada inaad fahantid. Inaad dooratid niche ama mowduuc traffic leh oo dad badan ay soo booqanayaan, mowduuc la search gareynayo, mowduuc dad badan doonayaan inaad dooratid waa muhiim si aad kharash fiican uga suubisid. Mowduuc aan traffic lahayn oo cid soo booqanaysa jirin haddii aad dooratid macnaheedu waxaa weeye adna waxba kama samayn doontid. Midda labaad waa inuu yahay mowduuca dooratay mowduuca potential ama waxaan kala jeedaa mowduuc rabitaan aad u haysanay. Mowduuca jeceshahay inaad ka hadashid inuu yahay
mowduuc haddii xataa 6 bilood sanadka soo socda haddii aadan wax faa'iido ka helin aad ka hadli kartid. Qodobka xiga waxaa weeye do not be waa inaadan noqonin qof duplicate ah oo content-yada dadka kale soo duplicate gareeya ama soo celceliya. Tusaale inaad maqaalada dadka kale soo xadin, xogta dadka kaleeto oo u goonida ah ay diyaarsadeen waa inaad soo celinin, aadan ku soo celinin internetka. Sidaa daraaddeed shirkadaha dhammaan internetka waxay ka hortagaan qofka duplicator-ka oo raba inuu dadka kale xogtoodii soo celiyo, soo laba jibaaro ama mar kaleeto uu soo geliyo internetka. Sidaa daraaddeed waxaa isku daydaa inaad noqotid qof unique oo natural ah oo xogtiisa u goonida ah soo gelinaya internetka. Tallaabada xigta waxay ku noqonaysaa publish your first blog. Bloggii kugu horreeyay inaad soo gelisid. Marka waxaan kula talinayaa inaad blog soo gelisid daily haddii suurtagal tahay, maalinkii 1 blog haddii suurtagali weyso usbuucii 4 blog iyo ka badan. Qodobka afraad oo muhiimkaasna waa applying for AdSense. Markii aad website soo suubsatay, domain subis hosting samaysay, internetka la soo geliyay, niche aad soo dooratay, niche-ka dad wuxuu noqday niche traffic leh, dad baa kugu soo xirmay. Marka kan waxaa u baahan tahay inaad dadkaas kugu xiran xayeysiinta ay arkayaan kharashkeedii in aad ku soo gaarto. Marka waxaa u baahan tahay inaad AdSense aad codsatid. Google AdSense-na waa meeshaan kuu sheegay oo isku keen xiraysa adiga iyo dadka xayeysiintii watay, shirkadihii kambaniyyaashii xayeysiintii watay ayay isku keen xiraysaa. Waa Google AdSense. Waa isla shirkadda soo gelaysa xayeysiismaha YouTube-ka ka mas'uulka. Shirkaddaas waxay hoos tagtaa shirkadda weyn ee Google. Hadda marka kan waxaad isweydiinaysaa maxaa weeye xiriirka ka dhexeeya title-ka soo aragtay ama ciwaanka soo aragtay iyo thumbnail-ka iyo muuqaalkan. Qaabka ugu fiican muuqaalkan waxaa weeye micnaha iyo xiriirka ka dhexeeya waxay noqonaysaa qofka haddii uu noqdo qof blogging-ka si fiican u fahmay oo ku soo gudbin karo wax dadka jecel yihiin si maalinle ah, micnaheedu waxaa weeye maalintii inuu samayn karo wax ka badan $35. Haddii lagu dhufto 30 beri noqonayso $1,000. Saas ayuu qofkii ku samayn karaa kharash fiican asagoo soo gelinaya blogs fiican ama articles qurux badan oo dadka jecel yihiin.